kormeer ka shaqo ee wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland uu ku tagay xarunta cisbitaalka Dr. Adna Aadan Ismaaciil waxa uu ku horgelaya adeegyada caafimaad ee dhakhtarkani uu fidiyo bulshada ku nool mandaqada Geeska Afrika isagoo wasiirku goobgoob u dul istaagay qaybaha kala duwan ee cisbitaalkaas waxaana warbixin ka siinay howlaha caafimaad ee cisbitaalkaasi bixiyo aasaasaha dhakhtarkan Marwo Adna Aadan Ismaaciil iyadoo cisbitaalka ay ka socotay mashruuc qalliin oo looga faa'iideynayo ubadka yaryar ee soo waajahan xanuunada madaxweynaanta faruuryaha iyo burooyinka dhabarka ka soo baxa qalliinkaas oo ay fulinayaan dhakhaatiir ajnabiya Marwo Dr. Adna Aadan oo ah mulkiilaha dhakhtarkaas ayaa si qoto dheer uga warbixisay adeegyada caafimaad ee xarunta lagu qabto iyadoo hoosta ka xariiqday sida bulshada ku dhaqan mandaqada Geeska Afrika ay uga faa'iideystaan adeegyada uu dhakhtarkani bixiyo joogtada loogu yimaada waxay yimaadaan 6 toddobaad mar bay dhakhaatiirtu timaadaa laakiin si doorkan waxaad moodaa inay isku soo yara beegmeelo saddex kooxood oo qaarba wax gaar ah khasiskooda yahay ayaa inoo imanaya markaa waan isku wadi doonaa insha Allah waxaana farxad weyn ah inaan ku soo dhaweeyo cisbitaalka wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee waddanka Soomaaliland oo kormeer iyo booqasho loogu yimid adeegyada loo yimaada waxa weeyaan horta waa doorkan ugu horeeya waa faruuraha iyo dhaxanaga iyo ku dhasha qaarna waxa weeyaan kuwa igu qalloocaan iyadana loo toosiyo waxaa jira kuwa madaxda waaweyn leh oo biyaha laga sii daayo waxaa jira kuwa dhabarka kule burooyinka ee xanguluhu soo dhaco ee ku dhasha dhibaatooyinkaas iyagana la hagaajiyo saddex boqol in ka badan ayaa marayna kharash ka baqan ruuxa bilaash baa loo diiday ka baqan hay cuni waxay cunaan loo waayay ka baqan socdintii waa loo hayaa qalabkii farsamadii waa loo hayaa bishardi oo caruurtaas iyagoo la gubin oo aan caleemo iyo waxyaabo kale jirkoodii maqaarka lagu soo gubin oo aan waxyeelo loo geysanin oo halkeena wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Xasan Daahir Dambiil ayaa ka marakacay waxqabadka muuqda ee Soomaaliland uga hirgalay bixinta adeegyada caafimaad ee markii hore loo doonan jiray buu yiri dalka dibadiisa isagoo wasiir ku-xigeenku u mahadnaqay Marwo Adna Aadan iyo dhakhaatiirta ajnabiga ee qalliinka u fidiya bulshada rayidka gaar ahaan caruurta magaciisa sharaf umada yaqaan oo soo hoosay runtii waxaan ka dowladda Soomaaliland marka hore waxay meel la doon Soomaaliya oo dadka dowladda magac Soomaaliyeed isku loo dhigay waxay ku darsatay adeeg caafimaad cusub wax ilaahay loo mahadnaqo waxaan runtii soo arkay isbitaalka runtii noolay adeegooda la bilaabay dowladda haddii ay dhaxay waxaan soo arkay runtii madax iyo jireed soo arkay jaamacadda iyo لا كسرتها هذا كوبات سيرنا إذا كسكوا الأدنى ورتي ذلك يدرك بدان بدن بجسي وعن تكرار ما نقينا ذلك أجنبيها ورتي قلفت الوقت هذا نصور ubadka adeegan caafimaad loo fidinayo ayay qaarkood yihiin kuwa ka yimi deegaanada dhawaan Soomaaliland ah oo howlgal caafimaad ay ka fuliyeen wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda Shifaad kaasoo ha kormeer deegaanada Soomaaliland oo dhan adeegyo caafimaad oo bilaash ah oo khubaro ajnabi bixinayeen laga hirgeliyay